بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan halkan fariin dhiirigelin ah ugu diro dhalinyarada Soomaaliyeed aqoon-yahanada Soomaaliyeed beeryahanada Soomaaliyeed ee u istaagay inay aas-aasaan machad u gaar ah in lagu barto cilmiga beeraha machadkaasi oo loo yaqaan Somali Institute of Agriculture runtii waa fikrad aad u muhiim ah waa fikrad wax ku ool ah runtii waxaan isleeyahay fikradaasi waa fikrad xilligii loo baahnaa oo baahida ay jirtay ayaa la aasaasay runtii waxaan kaloo isleeyahayba fikradaasi waxay ahayd in xilligan ka hor ay timaado runtii aad ugu mahadcelinaya dhalinyaradaas waxaan leeyahay runtii waxaad keenteen fikrad aad muhiim ah maskaxdiina waad ka shaqayseen waxaad mar waliba u istaagteen in fikrad aad u muhiim ah machadkaasi loo yaqaan Somali Institute of Agriculture waa machad u gaar ah in lagu barto cilmiga beeraha sida aan naqaano Soomaaliya dalkeena Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha waana pointiga ugu muhiimsan dhalinyarada Soomaaliyeed bahda waxbarashada waxaan aad ugu dhiirigelinayaa in ay ka faa'iideystaan machadkaasi u gaarka ah cilmiga beeraha machadkaasi wuxuu bixinayaa koorsooyin gaar ah wuxuu bixinayaa seminaries joogto ah wuxuu bixinayaa practical oo fieldiga iyo beeraha la tagi karo practical ayuu bixinayaa machadkaasi wuxuu aad muhiim ugu yahay ardayda barata ee jecel inay wax ka bartaan cilmiga beeraha gaar ahaan ardayga bachelor diyaarinaya gaar ahaan ardayga secondary-ga dhameeyay ee rajaynaya inuu ku biiro kulliyadda beeraha runtii sida aan naqaano dhalinyarada Soomaaliyeed ama ardayda Soomaaliyeed ee wax barata muhiimadda ma saaraan cilmiga beeraha waa cilmi aad ugu muhiim ah dalkeena Soomaaliya waa isha kaliya ee wax ku dhisan anagoo haysana laba webi iyo dhul beereed aad u muhiimsan ayaan maalin walba sanad walba waxaa la dala dhacaynaa abaaro joogto ah iyo biyo la'aan dad xoolahoodii iyo biyahoodii iyo beerahoodii isku saaran yihiin abaar joogto ah ku dhacaysa taasi waxaa keenaysa aqoon yarida aan u leenahay cilmiga beeraha iyo wax soo saarkooda kulay waxaan isleeyahay waxaa loo taagan yahay mar walba dhalinyarada Soomaaliyeed ay u istaageen inay improvement ku sameeyaan oo kor u kiciyaan cilmiga beeraha sida loo horumarin lahaa kulay waxaan leeyahay machadkaasi waxaan rajaynayaa inuu aad iyo aad wax weyn ku soo kordhin doono fieldiga beeraha iyo ardayda wax ka baranaysa inuu cilmigooda aqoontooda kor ugu qaadi doono waxaan ugu dambeyn idin leeyahay waa idinkaga soo dibdhacay anigoo ah magacayga Axmed Khadar Cabdisamed oo jooga dalka Turkiga ka diyaarinaya jaamacadda Nami Kamal University kulliyadda beeraha gaar ahaan Department of Agriculture waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay cilmiga beeraha xoogga saaraan runtii waxaan rajaynayaa in machadkaasi uu qayb ka yahay horumarinta beeraha iyo ardayda Soomaaliyeed inay aad u faa'iideysan doonaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi